عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا qaaliga soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan kaga hadlayaa qaabkii aad ku ogaan lahayd qofka saaxiibka ah ee WhatsApp-ka isugu jirtaan magacaaga waxa uu ku save gareystay haddii fiidiyogan uu muhiim ku yahay marka hore fiidiyogan like saar sidoo kalena channelka subscribe saar aad baad mahadsantahay marka hore application-ka waxaad ka helaysaan Play Store laga helo waxaad ka helaysaan Google Chrome-kiina marka ugu horeysa talaabada aad qaadaysaa waxay tahay waxaad soo keenaysaa browser-ka kugu jira aniga hadda waxa igu jira Google Chrome ayaa soo keenaya kadib markuu sidan igu soo baxo halkaas search-da waxaan ku qorayaa get contact soo jeedaan oo idinka arka kadib waxa ku soo baxaya website badan kaas ayaa tagaysaa getcontact.up-down marka intaas sameyso sidan ayuu kugu soo baxaya latest version ayaa taabanaysaa kadibna download free marka taabato kadib download anywhere ayaa taabanaysaa kadib aniga hadda wuu socdaa horeyna ayaan la soo degay marka application-ka ayaan guda galayaa application-ka markuu sidatan yahay waa taabanaysaa kadib markuu sidan u soo baxo step-ka koowaad waxa ku soo baxaya agree and continue waskas dhaafaysa halka kadibna start now kadibna continue kadibna halkan ay ku saaraya set contact as your default phone app kadib waxa taabanaysaa set as kadib waxa ku saaraya marka hore inaad iska sign up gareyso ama hadii aad Gmail lahayd Gmail-kaaga geliso aniga hadda Gmail-kaaga ayaan gelinayaa kadib marka halkan ayaa ku soo baxaysa step-ka koowaad kadib waxaad ogaanaysaa imika dadka application-ka isticmaala inay inta yihiin la soo degtay marka asxaabtan ayaan marka hore ku horeynaa qof kastaba wixii magaciisa waxa uu ku save gareystay saaxiibkii imika halkan intaas oo qofood ayaa ku jira tusaale ahaan ka ugu sareeyay ayaan gelayaa imika marka intaas sameeyo more tags ayaan taabanayaa imika ninkan u jeedaan magacyada ugu badan ee ku save gareysteen dadka waxa kamid ah Xuuto Maxamed Cabdi Cusmaan madaxdii Xuuto marka adigu way badan yihiin marka aniga hadda waxaan ogaanayaa magacayga waxa lagu save gareystay lambarkayga oo asxaabta kale waxa ay ku save gareysteen hadaba waxaan sameynayaa marka ugu horeysa waxaan imanayaa halkan ay ku qoran tahay other kadib waxaan ka sii tagay ciwaankayga my profile kadib imika magacyadan u jeedaan waa magacyada ay ugu save gareysteen asxaabtaydu ilkaase Bashiir ilkaase laba sameey ilkaase waa magacyada ugu badan ay isticmaaleen marka application-ka marka hore wuxuu ka rabaa markaad ogaanaysid qofkan in isagana ugu jiro markaas application-ku oo uu la soo degay waxaad sameynaysaa oo kale application-ku wuxuu kale leeyahay wuxuu ku sheegayaa marka lagu soo waco lambar aanad garanayn oo ku soo waco ayaad ogaanaysaa magaca ku qoran lambarkaasi mid kale application-kan wuxuu leeyahay waxaad awood u leedahay inaad asxaabtaada la sheekaysato oo qaab messenger ahaan oo kale aad ku wada hadashaan waa application aad iyo aad u cajiib ah marka asxaabta waxaan rajeynayaa inaad fahanteen oo aad ogaanaysid markaasi magacyada lagu save gareystay lambarkaaga marka aad baad mahadsantihiin fiidiyogana sii share gareeya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh